qofna markii uu dhalanayay ma uu dooran midabkiisa nasabkiisa hantidiisa iyo cid uu noqonayo haddii aadan abuurka ixtiraamayn abuuraha ixtiraam cadowga ugu weyn ee islaamku waa muslimka jaahilka ka oo xanaaqiisa iyo xamaasadiisa ku sameynaya falalka sumcad darada u soo jiidaya islaamka dadka kalena marka ay arkaan waxay moodayaan inuu islaamku yahay isaga oo kale anigu muslim baan ahay islaamkuna waa diin dhammaystiran laakiin anigu ma ihi insaan dhammaystiran haddii aan gaf ku dhaco islaamka ha canaaninina aniga iyo canaanta qofka gudaha ka wasaqaysani ma suuraysto inay jiraan dad wanaagsan dadka kuwa ugu dhaqanka xumi waa kuwa marka ay ka cadhoodaan wanaagaaga inkira sirtaada faafiya noloshaada diida waxaanad ahayna ka sheega annagu manihi kuwa ka dib dhacsan reer galbeedka balse waxaynu nahay kuwa ka dib dhacsan islaamka caalamka waxaan ugu harnay kadib markaan ka tagnay diinteena waa in aad ilaahay ka filataa waxaanu garaadkaagu sugayn ilaahay wax walba uu awoodaaye joogidaada iyo la'aantaadu islaamku waa isugu mid balse adiga islaamka la'aantii waad lumaysaa islaamka adiga la'aanta wuu guulaysanayaa laakiin adiga islaamka la'aantiis waad khasaaraysaa waxaan aaminsanahay in alle yahay ka kaliya wax abuura wuxuuna noo soo diray rasuulo iyo nebiyo si ay noo hagaan